السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن داوديال ملك سoo joogtana dilkiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida oo aad maalin kasta ka daawataan shabakada wararka ee warqa tube. maanta waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha 3 sanada 2019. qodobada dunida ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ilhaan Cumar iyo nolosheeda oo halis ku jirta. FBI-da Mareykanka oo baadi goobaysa koox doonaysa in ay dilaan xildhibaanadan. Ilhaan Cumar iyo Rashida Daliba oo saxiixay mooshin xilka looga toorayo madaxweynaha Mareykanka xilli Trump uu weerar ku qaaday xildhibaanada aslahan ka soo jeeda Soomaaliya ee Ilhaan Cumar. wararkeena kale waxaa ka mid ah waxyaabihii ka soo kordhay dagaalkii dalalka Indiya iyo Pakistan iyo Mareykanka oo dagaal hoose ku qaaday maamulka Islamabad miyuu ka soo ceshan doonaa diyaarado uu horey uga iibiyay maamulka Pakistan. waxaad kaloo barnaamijkeena aad ku daawan doontaan meydkii marxuum Jamaal Khashoggi oo ugu dambeyn la ogaaday halkii lagu gubay iyo muuqaal naxdin leh oo laga soo bandhigay dawladda Turkiga oo shaaca ka qaaday inaysan indhaha ka fiirsan doonin xasuuqa ay Yahuuddu ku hayso dadka Falastiiniyiinta. hogaamiyaha lagu kacsan yahay ee dalka Algeria oo mar kale ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal ku soo qaadi doonaa barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida ee shabakada wararka ee warqa tube. daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe dheh channelkeena warqa tube, sidoo kalena dooro gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ogaada wararka iyo warbixinada aynu soo gelino shabakada wararka ee warqa tube. aan ku bilaawno barnaamijkeena. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ka tirsan Koongareeska waddankaasi Mareykanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markaasi ay xaalad siyaasadeed oo kacsan mar labaad lugta la gashay, iyadoo sidoo kale lagu soo waramayo in nolosheeda ay halis ku jirto. FBI-da waddanka Mareykanka waxa ay baadi goobaysaa koox doonaysa in ay dilaan xildhibaanad Ilhaan Cumar. wararkii ugu dambeeyay ee arrintaas ay ka qoreen warbaahinta waddanka Mareykanka haddii aynu wax ka fiirino waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar ayaa lagu hanjabay in la qaarajin doono kadib markii waayadii ugu dambeysay ay si aad uga hadlaysay siyaasadda Mareykanka iyo Israel, iyadoo si aad daboolka uga rogtay in siyaasadda ka dhaxaysa Mareykanka iyo Israel ay ku dhisan tahay lacag iyo in daacad loo ahaado maamulka Yahuudda. intaas wixii ka dambeysay waxaa xildhibaanad Ilhaan Cumar ay la kulmaysay dhaleecayn xoog leh oo u imaanaysay. dhaleecayntu halkeed ha iska ahaatee waxaa sidoo kale hadda soo baxaya in loo goodinayo oo loo hanjabayo isla markaana loogu hanjabayo in la qaarijiyo. xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa waxa ay sheegtay in ay soo gaareen dhowr fariimood oo lagu hanjabayo in nolosha la dhaafin doono. waxaana ay tiri, la yaab ma lahan in aan ku jiro liiska dadka la doonayo in la dilo ee kooxaha argagixisada ah ee gudaha ay raadsanayaan, iyo weliba in kaalintayda shidaalka lagu qoray Ilhaan ha la qaarijiyo. sidaas ayay ku soo qortay barta ay ku leedahay Twitterka xildhibaanad Ilhaan Cumar. waxay intaa ku dartay, wax kalaba iska daaye siyaasiyiinta garabka jamhuuriga ayaa magaalooyinka caasimadaha u ah gobolada ku soo bandhigay sawir islaam nacayb ah oo ila xiriirinaya argagixisada, mana jirto bay tiri cid cambaaraysay. xildhibaanada laga soo doorto Minnesota ayaa waxaa lagu soo waramayaa in magaceeda laga dhex arkay liiska dadka la doonayo in la qaarijo ee Ilhaan Cumar ay ka hadashay ayaa ku saabsan nin cadaan ah oo sida la sheegay si iskiis ah isku abaabulay oo soo bandhigay inuu qaarijin doono liiska dad fara badan. ninkaas oo lagu magacaabo Christopher Paul Hayson ayaa lagu soo waramay in uu haysto hub uuna qortay magacyada siyaasiyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo uu doonayo in uu dilo, kuwaas oo ay ka mid tahay xildhibaanad Ilhaan Cumar. xildhibaanad Ilhaan Cumar intaas oo kaliya laguma ekaynay. mas-uuliyiinta heer federaal ee dambibaarayaasha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay ku raad joogaan oo ay baarayaan fariimo hanjabaad ah oo loo soo diray xildhibaanad Ilhaan Cumar. mas-uuliyiintan ayaa la sheegay in ay eegayaan fariin nacayb daran ay ka muuqanaysay taas oo loo soo diray xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ka mid ah Koongareeska waddanka Mareykanka. hay-adda dambibaarista Mareykanka ee FBI-da waxa ay sheegtay in ay ku raad joogto qoraal hanjabaad iyo nacayb uu ka muuqdo oo loo soo diray xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee waddanka Mareykanka. FBI-da Mareykanka oo ah hay-adda dambibaarista ee waddankaas ayaa waxa ay sheegtay in ay ku raad joogaan qoraal hanjabaad iyo nacayb uu ka muuqdo oo loogu hanjabay
xildhibaanad ilhaan cumar oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee waddanka maraykanka. FBI-da maraykanku waxay sheegtay in qoraalkan hanjabaada ah lagu qoray derbiga suuli ku yaala kaalin shidaal, islamarkaana ay baaritaan ku hayaan nin lagu tuhumayo in uu qoray qoraalkaas fartiisana ay tahay. ninka lagu tuhumayo in uu qoraalkaas qoray oo ay fartiisa tahay ayaa waxaa lagu sheegayaa inuu yahay Brian Raines, waxaana la tuhmayaa in bishii hore ee February 22 uu martagay kaalinka shidaalka ee derbiga musqushiisa lagu qoray hanjabaada ilhaan cumar loo dirayo. Brian Raines ayaa hore waxa uu sheegay in uusan marnaba la kulmi doonin ilhaan cumar oo ah mid kamid ah 2 gabdhood oo muslimiin ah oo markii ugu horeeyay ka mid noqday baarlamaanka waddanka Mareykanka. fariinta lagu qoray musqusha ayaa ahayd muslimad madow oo qaxootinimo ku gashay Mareykanka. waaxda hay-adda FBI-da ee magaalada Minneapolis waxa ay sheegeen in ay ku baraarugsan yihiin qoraalka la soo dhigay barta bulshada ay ku xiriiraan ee loo yaqaan Instagram-ka. ilhaan cumar ayaa waxa ay la kulmaysaa ololo ballaaran oo muslim nacayb ah kadib markii ilhaan cumar ay siyaasadda Mareykanka ka noqotay gabar ku soo shacbaxda isla markaana aan la gaban afkaaraheeda. kaliya kuma eka dadka baraha bulshada ku weeraraya iyo kuwa fariimaha hanjabaada u soo diraya ilhaan, madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale weerar afka ku qaaday xildhibaanad ilhaan cumar. madaxweyne Donald Trump ayaa mar kale waxa uu weerar afka ku qaaday xildhibaan ilhaan cumar, waxaana uu ku dhaleeceeyay siyaasadda qodqodka ah ee Israel ku aadan ee ay baryahan hadal hayso xildhibaanada. Trump ayaa sheegay in ay jiraan xildhibaano nacab Mareykanka sidoo hadal ku dhigay xilli uu khudbad ka jeedinayay shir looga hadlayay siyaasadda, waxaana dadkii shirkaas ku sugnaa ay hal mar ku qayliyeen magaca ilhaan cumar. waxa uu intaa ku daray in ay hayaan dad xildhibaano oo ka tirsan aqalka hoose ee Mareykanka isla markaana nacab dalweynaha Mareykanka, waxaana xubnaha uu sheegay madaxweyne Donald Trump loo malaynayaa inay ugu horeyso xildhibaanad ilhaan cumar. tan iyo markii aqalka hoose ee Koongareeska waddanka Mareykanka ay la wareegeen xisbiga dimuqraadiga, waxaa si aad isu soo taraysay siyaasadaha qallafsan ee waddanka Mareykanka haraynaysa. xildhibaanad ilhaan cumar ayaa la gaban sida ay uga soo horjeedo siyaasadda Mareykanka ee maamulka Yahuudda, waxaana ay dhowr jeer ku celcelisay in ay ku dhisan tahay lacag iyo nintooxsi siyaasadda Mareykanka ee Israel. dhowr jeer ayayna si aad u weerartay siyaasadda guddiga Israel iyo Mareykanka qadiyadahooda ka shaqeeya oo ay ku tilmaamtay mid ku tiirsan dana dhaqaale oo kaliya, balse aan loo danaynaynin jacaylka Mareykanka iyo dalweynaha reer Mareykan waxa danta oo ah. waa hagaag daawadayaal qaybii dhexe ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida ayaan isla soo gaarnay. markana aanu fiirino warar cusub oo kusoo kordhay kiiska wariye marxuum Jamaal Khashoggi. baaritaan uu sameeyey telefishinka Al Jazeera qaybta afka Carabiga ku hadla ayaa waxa uu soo bandhigay suurtagalnimada in meydkii wariye Jamaal Khashoggi laguna gubay xafiiska uu lahaa qunsulka guud ee dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiga u fadhiyay qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. wararkan cusub ee soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan in qoraagii wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ee Jamaal Khashoggi markii la dilay kadib meydkiisa la gubay isla markaana la baabi'iyay. waxaa arrintaasi aad ula socday Ustaad Cumar Sheekh Nuur oo iminka studio ugu sugan. Ustaad ku soo dhawow barnaamijka, bal waxaad macluumaad naga siisaa arrintan cusub ee hadda Al Jazeera baaritaan ku sameeyeen. xasanow waad mahadsan tahay. waxaa is soo taraya qaabkii uu u dhacay dilkii wariye Jamaal Khashoggi sanadkii tagay bishii Oktoobar 2 documentary cusub oo Al Jazeera qaybta Carabiga axadii ay baahisay. waxaa lagu soo bandhigay muuqaalo iyo sawiro muujinaya in meydka wariye Jamaal Khashoggi lagu gubay guriga qunsulkii Sacuudiga u fadhiyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. waxaa la leeyahay waxaa loo adeegsaday gubitaanka meydka Khashoggi qaybta kululeysada ama sida foornadoo kale u samaysan guriga qunsuliyadda ku taalay oo la sheegay in heerkulkeeda uu gaarsiisanaa 100 digrii oo ah meesha birtu ku dhalaali karto markii dab la geliyo. waxa ay wareysatay Al Jazeera mid ka mid ah shaqaalihii dhisay aaladaasi kululeysada ah ama foornadoo kale u samaysan. marka waxaa kaloo lasoo bandhigay dhiig
ku daatay mid ka mid ah derbiyada guriga qunsulka guud ee sacuudiga ee magaalada istanbul. arrintana marka waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa oo ma ahan waa la hubaa in meydka wariye jamaal khashoggi markii lagu dilay qunsuliyadda kadib la geeyey guriga qunsulka kadibna halkaasi lagu gubay. horeyna waxaa loo sheegay in meydkiisa loo adeegsaday acid hydrochloric acid in lagu kala burburiyey ama lagu baabiyey gebi ahaanba. marka macluumaadkan cusub ee la helayna waxa ay markaasi muujinaysaa sida arxandarada ah ee suxufigaasi sacuudiga uu u dilay. marka dilkiisa hadda waxaa la leeyahay kadib waa la gubay. horeyna waxaa loo sheegay in aashito lagu kala burburiyey xubnaha jirkiisa. laakiinse weli ma jirto cadeymo dhab ah oo muujinaya inay dhiigga ku daatay derbiga uu yahay midkii wariye jamaal khashoggi. laakiinse baariyaasha dalka turkiga u dhashay ayaa weli dabagal ku haya arintan cusub ee soo cusboonaatay. waa gartay kiiskan hadda ama arintan cusub uu baaritaanka telefishinka aljazeera qaybta carabiga uu sameeyey maxay kusoo kordhinaysaa, maxay ku siyaadinaysaa cadaadiskii saarnaa maxamed bin salmaan iyo boqortooyada waddanka sacuudi carabiya? wax badan ayay kusii kordhinaysaa sababtoo ah caalamka waxa uu tuhmayaa maxamed bin salmaan inuu yahay ninka bixiyey amarka lagu dilay wariyaha. sababtoo ah tiimka ama kooxda loo diray qunsuliyadda waxay ahaayeen kuwa awaamiirtu ka qaadanayay magaalada riyaad oo markaasi qadka teleefonka waxa ay sameynayaan looga sheegayay. waxaa la yidhi markii hore waxaa loo diray 15 qof kooxda loo bixiyey hid squadka kuwa wax qaarijiya inay soo xiraan suxufiga. laakiinse sacuudiga waxa ay qirteen muran iyo gacanka hadal kadib in markaasi uu ku dhintay wariyaha. taana ay muujinayso in la siiyey amar ah inay dilaan mar haddii uu diiday in lasoo xiro oo sacuudiga lagu celiyo. wariye jamaal khashoggi waxa uu ahaa nin aad markaasi u dhaliila siyaasadda wiilkan yar maxamed bin salmaan. ugu dambeyn marka maxay ku dambeyn doontaa baa is leedahay kiiskan? sacuudiga waxa uu isku dayaa ilaa hadda inuu arintan uu ku dhameeyo qaab hoose. waxa uu sheegay ninkaas inuu ahaa nin muwaadin ah kuna baxay gacanta sacuudiga, arintuna ay tahay arin sacuudiga ay u taalo. horeyna waxay u sheegeen in raggii loo qabtay oo 11 qof gaaraya inaysan u gacan gelin doonin dal kale oo sacuudiga ka baxsan. oo turkiga ayaa codsaday in maadaama dembiga gudaha dalkoodii uu ka dhacay in lagu ciqaabo dadkii falkaasi geystay, laakiin sacuudiga waa ay diideen. waxay sheegeen inay iyagu ay maxkamadeynayaan. horeyna waxaa dembi oogaha ama dacwad oogaha guud ee sacuudiga uu sheegay in 5 qof oo ka mid ahaa dadkii dilay inay u raadinayaan dil toogasho inay ku xukumaan. laakiinse ilaa hadda ma jirto. laakiin cadaadiska beesha caalamka iyo wadamadan reer galbeedka ee maxamed bin salmaan ma ahan mid joogsanaya. kiiskanna waa kiis gaaray ilaa ay ka hadlaan sanadka maraykanka oo Trump xitaa uu naftirkiisa dharbaaxa xoogan uu kala kulmay sababta uga gaabsanayo uga aamusan yahay inuu arintan ka hadlo oo maxamed bin salmaan kiiskan uu ku eedeeyo. marka maxamed bin salmaan waxa uu adeegsanaya saameyntiisa iyo saameynta dalkiisa uu leeyahay iyo saaxiibtinimada dhow ee maraykanka uu kala dhaxeeyo. sacuudiguna waxaad og tahay in hadda cilaaqaadkii kala dhaxeeyay dalal badan oo turkiga uu ka mid yahay inuu hoos u dhacay oo xitaa turkigu ay sheegeen in sacuudiga ay kala shaqeyn waayeen kiiskan baaritaankiisa. laakiin waxaa xaqiiqa ah turkiga inuu hayo cadeymo ku filan in maxamed bin salmaan uu ka dambeeyo. marka laakiinse ma doonayaan inay dhaawacaan xiriirka kala dhaxeeya wadanka sacuudiga. waxa ay maqal la duubay oo saacadii ay duubtay jamaal khashoggi ay la wadaageen sirdoonka maraykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah, laakiinse weli lama soo bandhigin. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ustaad cumar sheekh nuur xuseen oo ila falanqeynayay kiiska wariye jamaal khashoggi iyo wararka kusoo kordhay. markana bariga dhexe, dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday in aysan indhaha ka fiirsan doonin xasuuqa ay yahuuddu ku hayso dadka falastiiniyiinta ah.
dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa ay sheegtay in marnaba aysan indhaha ka laaban doonin gumaadka iyo gabadfalada ay maamulka Yuhuudda ku hayaan dadka reer Falastiin iyagoo hoosta ka xariiqay in Turkigu uu difaaci doono dadka reer Falastiin. weerarada dheeraadka ah ee sharci darrada ah ee ay Yuhuuddu ku hayaan dadka reer Falastiin waa kuwo aan loo dulqaadan karin, waxaana waajib muqadas ah nagu ah inaynu difaacno. Malfuud Gofasuglu, wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Turkiga, ayaa sidaas ka sheegay shirka dhacay magaalada Istanbul ee wadankaasi Turkiga. Wuxuu carabka ku adkeeyay in dowladda Turkigu ay markasta diyaar u tahay inay garab istaagnaato dadka reer Falastiin oo uu sheegay inay yihiin dad xuquuqdooda markasta lagu tutumanayo. dadka reer Falastiin ayaa waxa dhib weyn ku haya maamulka Yuhuudda Israa'iil ee Mareykanku taageero, kuwaas oo deegaanadooda iyo dhulkooda xoog ku qabsanaya isla markaana dhisanaya. dhinaca kalena madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas Abu Maasin ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Ciraaq ninka la yiraahdo Caadil Abdi Al-Mahdi axadii la soo dhaafay, waxaana uu kulankaas qayb ka ahaa boqosho rasmi ah oo uu ku tagay caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad la yiraahdo, sida warbaahinta gudaha ay soo tabiyeen. Cabbaas iyo Al-Mahdi ayaa waxay ka wada hadleen horumaradii ugu dambeeyay ee arrinta Falastiiniyiinta iyo sida looga fogaan lahaa in Jerusalem ay noqoto magaalo ay Yuhuudda xoog ku qaataan. Ciraaq waxa ay mowqif adag ka istaagsan tahay arrinta gobolka, waxaana ay diyaar u tahay inay taageerto shacabka reer Falastiin. Cabdi Al-Mahdi ayaa sidaas ka sheegay kulanka ay labada dhinac yeesheen. Maxamuud Cabbaas ayaa isaguna dhankiisa sheegay in magaalada Qudus aysan u noqon karin caasimad maamulka Yuhuudda, isla markaana looga baahan yahay buu yiri dadka Carabta ah ee ku dhaqan mandiqada Bariga Dhexe inaysan arrinta dhexdhexaad ka noqon. Maxamuud Cabbaas ayaa sidoo kale la filayay inuu la kulmo dhigiisa wadankaas Ciraaq Bahram Saalixi oo uu kula kulmo magaalada Baghdad ee xarunta wadankaas Ciraaq. ugu dambeyntii daawadayaal, dhanka iyo wadanka Algeria haddaan fiirno, madaxweynaha wadanka Algeria ee da'du kasii daba tagayso Cabdulaziz Bouteflika ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ku dhawaaqay in markii shanaad uu doonayo in uu tartamo xilka madaxweynenimada ee wadankaas. dalka Algeria magaalooyinkiisa waaweyn waxaa ka soconaya dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo in markaasi madaxweynahan 82 sano jirka ah uu markii shanaad kursiga madaxweynaha ee wadankaas uu tartamo. dalka Algeria bisha Abriil waxaa ka dhici doona doorashada madaxtinimada ee wadankaas. Cabdulaziz Bouteflika madaxiisa ololahana waxa uu ku dhawaaqay in madaxweynuhu markii shanaad uu tartami doono. lama oga xaalka Algeria waxa uu ku dambeyn doono. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni wararka iyo warbixinadii dunida oo aad ka daawanayseen shabakada wararka ee Warqad Tube. qaybta labaad waxaa iga xasuusina daawadayaal, waxaan kusoo qaadi doonaa qaar ka mid ah qodobadii aad ku maqasheen hordhac barnaamijkan oo faahfaahsan. inta ka horeysa nabadgelyo.